halkan maanta waxaan idin kula wadaagayaa barnaamij aan u bixiyay asalkii iyo aasaaskii qabiilka. su'aalaha bartan aan isku weydiinayno ee aan kaga jawaabi doonana waxa kamid ah kooxahan ay Soomaalidu isu qaybiso ma qabiilooyin baa magac kelmadda qabiil ma si sax aynu isticmaalay mise si khaldan taasoo micnaheedu yahay ma qabiilooyin baynu nahay mise ma nihin waayo kelmaddu waa kelmad carabi ah. su'aasha labaad aynu isweydiinayna waxa weeye haddii aanaynu qabiilooyin ahayn maxaynu nahay haddaynu qabiilooyin noqon weyno taa micnaheedu waxa weeye aayaddii qur-aanka ahayd ee ilaahay uu kaga hadlay inuu umamka u kala qaybiyey shucuub iyo qabaa'il aayaddaasi markaa inaga hadli mayso mar haddaanay aayaddaasi inaga hadlaynina waxaa soo baxayo caddaanaya in kooxahan aynu isu qaybinay ay yihiin wax aynu inagu samaysanay. si aan taa kuugu soo bandhigo barnaamijkan waxaan u dhiraandhirinayaa sida soo socota. kow waxaynu eegaynaa micnaha dhabta ah ee ay leedahay kelmadda qabiil waayo kelmadda qabiil waa kelmad carabi ah oo waxay ku jirtaa quraankeena kariimka ah ilaahay waa ka aayadda kaga hadlaya inuu umamka u sameeyay shucuub iyo qabaa'il. marka haddaynu Soomaali nahayna waxaanu nidhi aayaddu waxay ka hadlaysaa qabiilooyinkeena ayaa kamid ah kuwa ka hadlayso balse laakiin halkan waxaan kugu cadaynayaa kelmadda qabiil ee aayadda ku jirta inaanay ka hadlaynin kooxaha iyo beelaha Soomaalida. taa markaynu cadayno waxaanu raacinaynaa haddaanay Soomaalidu qabiil ahayn maxay yihiin. markaynu taa ka jawaabno waxay inoo caddaanayaa in ay Soomaalidu ay yihiin wax kale oo kooxo kale ay yihiin. kooxahaas markaynu sharaxnana waxa inoo caddaanaya in ay kooxahan yihiin kooxo ay Soomaalidu samaysatay ila ilaahay aayadiis mar haddaan ka hadlaynin waa wax markaa ay bini'aadamku samaysteen bini'aadam kale adduunkana way samaysan jireen. taa markaynu ogaano ayaa waxaanu haddaba isweydiinaynaa oo su-aasha labaad ah waxaan iyo kooxahan ay Soomaalidu samaysteen beelaha iyo qabiilooyinka sida khaldan ay ugu yeedhaan laakiin beelaha ahi waa maxay baahidii sababtay in ay Soomaalidu samaystaan kooxahan kala duwan iyo beelahan kala duwan. taa markaynu ka jawaabno iyo baahidii sababtay in ay Soomaalidu kooxahan samaystaan waxaynu u gudbaynaa qodobka saddexaad oo ah waxaynu isku bardhigaynaa abtirsiintii Soomaalidii hore iyo abtirsiinta Soomaalida maanta. taasina waxay inoo sii caddaynaysaa in aanay horta labada abtirsiimo isku mid ahayn maadaama labadii abtirsiimo aanay isku mid ahayna waxay ku tusaysaa in ay waxani ay tahay wax Soomaalidu ay dhoobdhoobeen ay samaysteen. taa markaynu sharaxno waxaynu u gudbaynaa qodobka afraad oo ah abtirsiintaynu gudaha usii galayna waxaan u bixi qodobka saddexaad afraad wuxuu noqonayaa abtirsiinta labaalaha. waan sharaxi doonaa abtirsiintaasina labaalahayna waxayna tusi doontaa in ay waxani yihiin wax Soomaalidu samaysatay. saddexdaa qodob oo inoo caddeeyna Soomaalida waxaan u gudbaynaa qodobka shanaad oo ah abtirsiinta muujinaysa isbeddelka abtirsiimooyinku si isu beddelaan. waxaan uga gudbaynaa qodobka lixaad oo ah erayada muujinaya in ay waxaan Soomaalidu kooxahoodana ay yihiin dad isbaahaystay oo isu yimi. qodobka toddobaad ayaynu uga gudbaynaa oo ah magacyo qabiil oo muujinaya isbaahaysiga. magacyo qabiil oo hadda joogo muujinaya isbaahaysiga dhammaantood Soomaalidu waa wada sidaa. waxaan uga gudbaynaa qodobka sideedaad oo ah reero lagu muransan yahay. sideeba lagu muransan yahay waxa jira oo in badan aad maqasheen beelo ama qabiilooyin Soomaaliyeed oo laba ku kala jira beelood labada qolana way is sheegtaan qolo waliba waxay tiraahdaa annagay qoladaas naga soo jeedaa iyo kuwa kale annagay naga soo jeedaa. taasina maxay ku caddaynaysaa muran muu yimaadeen haddii dhalashada iyo abtirsiintu ay dhab tahay. murankiiyo madmadow waxa meesha gelinayaa waxan baan ahayn wax sees adag leh oo xaqiiq ah waa kooxo isku biiray oo haddana kala baxay. waxaan kusoo gabagabaynayaa inay inoo caddaatay in beelaheennu ay yihiin wax Soomaalidu samaysatay baahidii abuurtayna hore aynu kaga soo hadalnay iminkana aynu u baahannahay inaynu dib u burburino waayo maaha wax ku salaysan xaqiiqi. haddaba doodan iyo fikraddan si aan kugu soo bandhigo doodanina maaha mid aan u kaligay leeyahay dad fara badan ayaa ila qaba. waxaynu ku bilaabaynaa aayaddii qur-aanka ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka kaga hadlay. aayaddaasina waa aayadda had iyo jeer marka ay Soomaalidu ay ka hadlayso kooxaheeda ay u soo qaadato si ay inoo tusto in kooxaheennan iyo waxaynu kala samaysanay aynu qabiilka ugu yeedhno ay ina tusaan inay yidhahdaan aayaddani waxay ka hadlaysaa qabiilkan. aayaddu kama hadlayso aayaddaynu u guda galaynaa. aayaddu waxay tiri shucuub iyo qabaa'il. okay shucuub iyo qabaa'il horta maxay ku kala duwan yihiin waa su-aasha koowaad. su-aasha halkan imika ku geli maayo. shucuubta waa nation ayaa lagu macneeyey. okay shucuubta waanu garanay iyo qabaa'il buu ilaahay ayuu ilaahay iyo qabaa'il baan idiin samaynay. qabaa'il waa maxay micnaha qabaa'il. waxaynu ognahay kelmaddu inay tahay kelmad carabiya waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku soo dejiyey luqadda carabida
إلهي بقى إنه شيء القرآن كسر شيء عربي واي هدو إلهي كسر شيء كلمة داس هو كلمة عربية ما حيكون نقوليسا قبيل ما حيكون نقوليسا أف صومالي إلا إنه الصومالي بين النحي لو عرب مدهين لغة لغة صومالية مركان ندور إنه قبيل كلمة على معناه آيات كلمة كنت تي قبيل وإن ده أف صومالي وشيتها ويا عرب ما يجي مركز ما محي معناها كلمة داس markaan u fiirsadaan in badan baaray waxaan arkay kutubtii Soomaalida ee ay nima dad fara badan ay inoo turjumeen Ilaahay khayr ka siiyo dadaal fiican bay sameeyeen ajarkeedana Ilaahay ka siiyo aayadda markay macneynayeen badankoodu waxay ku macneeyeen shucuub iyo qabaa'il bay yiraahdeen may macneeyeen waxba maxay sameeyeen Ilaahay aayadda markuu yiri qabaa'il iyana waxay yiraahdeen qabaa'il hay markaan maad macneeyeen aayadda waxaad samaysay kelmadii Carabida ahayd bad Soomaali u qortay وتلوا قبائل دوام حي اللي كلمة دوا عربي أو صومالي ما هي كلمة داس مركز إيجا سكستاو إيجي وين واي كلمة عد على يصدق مركز أكيد علماء مركز هذا يصو مرور بيجوا قبائل بيجي واي مركز تاسور عفي بوشدي الصومالية ده شعب كهيد بندح كلي قضيان فربضان أو وين بالمدوح ويدين أي مو محي كلمة قبيل محي أو صومالي كله قليسة إلا كلمة قبيل وعربية محي أو صومالي كله قليسة dad fara badan markay isku dayeen ka jawaabaan waxay yiraahdeen waxay noqonaysaa beel ama beelo way su'aali markan sii weydiiyaan hoos si galmay imika waxay arkeen inaanaynu garanaynin kelmadan qabiil macnaheedu waxay tahay dadka shicibka baan ka hadlaya laakiin ta shicibka uma jeedo markaad u soo noqoto kelmadan macnaheeda aynu eegno oo aan ku iri haddaad u fiirsato quraanka marka ay Soomaalidu toos qodee aayadda loo macnaynayo qabaa'il uma ku macnaya way لكن مركز كلمة ده أصلا نقطة لغتها كلاء أدونك أساسا لغة إنجليزية وهي لغة إنجليزية ده اللغة ده الشقية أو علمية سن أو اللغة العلمية دي وهي ده اللغة الشقية لغة ده مركز أصلا نقطة لغة ده سي مركز أي ترجمة يعني علماء ده وين الإسلام كاه كتب كقرآن كاه كتب ترجمة اللغة ده إنجليزية كلمة ده واحد كتب ترجمان ترايب شعوب يا قبائل واحد كتب ترجمان nations يا tribes ومحي لبعض سنة بتوعه مركز يمكن نيشنز بتشدو إلى قبيل بنوجه ده قبيل محل كتر شمي ترايب يا كتر شمي أنا دي شيء واحد كتر شمي يوسف علي بيكتال شاكير محمد سروار مشكل خان دمانتود ويدين كأركايا آياته ودن سيء معنيين آيات داس دمانتود إنجليش تكون معنيين هل كافرتانا واحد دين عسيي إلى كلمة دي آيات دا كتر تاء هاي قبيل أي كون معنيين ترايب واي ما محي ترايب كبيرنا ما كابر هذا إبكا وقالينا واي حتى واحد أرجعنا إن مركي إنجليش لغة الإسبانية إنجليش تلقوا ترجمين إلا واحد أرجعنا صومالي إنه كنت ترجمين قبيل مركز إنه مو ترجمين إنه مش شيء معناه هي قبيل وحي لكن علماء دي وين الإسلام كهيد مركي كنت ترجمين لغة دي إنجليش تهيد مركي لغة ترجمين قرآن كي قبيل واحد نقطة ترايب ومحي مركز ترايب أي نوقا الله يمكن halkaasaynu waxaynu ka arkaynaa aayaddu inay ka hadlayso kooxaheena Soomaalida marka laga hadlayo beelaheena iyo inaanay ka hadlaynin marka imika aynu gallo waa maxay macnaha kelmadda tribe haddaynu sharaxno kelmadda tribe wax kale ma aha kelmadda tribe waxa weeye dadka ku takhasusay cilmiga loo yaqaano anthropology-ga oo ah barashada dhaqamada kala duwan ee bulshooyinka adduunka ku nool yihiin iyo qaab dhismeedka bulshada oo de nooc walba isugu jira dadka ku takhasusay ee bartaa waxay sameeyeen markay ummadihii adduunka la kulmeen ee kala dhaqanka duwanaa ee kala maamulka duwanaa ee qaab dhismeedka bulshooyinkoodu kala duwanaayeen si loo kala garto waa in marka la sameeyaa group waliba iyo koox walba ama cid kastoo meel loogu tagaa waxay leedahay qaab dhismeed gaar ah qaab dhismeedyadooda magacyo loo yaqaanaa waxay kala yihiin qaab dhismeed maxaa kamid ah tribe ka kamid ah tribe-ku marka tribe laga hadlayo English wuxuu leeyahay qaab dhismeed bulsho wuxuu leeyahay astaamo lagu garto lagu yiraahdo dadka noocaas marka aragto waa tribe okay marka aayadina maxaynu kaga hadalnay culimadii muslimiinta ahayd oo luqadda ku turjuntay English waxay yiraahdeen aayaddu waxay ka hadlaysaa qabiilka marka aayaddu ay ka hadlaysaa English wuxuu ku noqonayaa tribe صباحا اوكي هذا بكلمه دي ترايب اللي هو انجليزي اينو سو قادنو اينو نحن ترايب waa maxay ترايب marka cid inoo macneynaysa ee inoo sheegaysa dawa anthropology waa cilmiga anthropology-ga cilmiga ilaahay baa leeyahay adduunka keenay cilmiga bulshada bartayna anthropology-ga leeyahay culimada turjumaysa macaawi fahmayeen bal aynu eegno qaab dhismeedka tribe-ku leeyahay waa noocee qaab dhismeedka tribe-ka markaynu eegno aynu eegnaa bulshada Soomaaliyeed qaab dhismeedka ma leedahay
haddaanay lahayn marka maxaa ka kaaga caddaanaya aayadda tribe ka hadlayso Soomaalidu maaha marka Soomaalidu maaha aynu eegno markaa eegayno tribe-ka inaynu fahanno waxaynu eegaynaa anthropology ama cilmiga ku takhasusay waa maxay waxa loo yaqaano tribe saynu haddaba kaa u gallo waxaynu eegaynaa inuu soo qaadanaynaa bal dadkii inoo yimi ee anthropologist-ka ahaa ee cilmiga bartay iyo dad Soomaaliyeed oo iyana cilmiga bartay social science-ka wuxuu isla wada xidhiidhaa markay isla eegeen maxaa soo baxay ma isku raaceen ma isku diideen waxaa jiray nin anthropologist ah oo la odhan jiray Lewis ninkaasi wuxuu ahaa Ingiriis marka isaga u fiirsato iyo kuwii dhinaca kale Faransiiska iyo Talyaaniga iyo waxa markaad eegto markii ay Soomaalidu u yimaadeen iyagoo anthropologist ah oo cilmiga anthropology-ga yaqaana ay Soomaalidii baadheen waxay arkeen Soomaalidu inaanay tribe ahayn tribe maaha maxay ugu yeedheen magac kale ugu yeedheen magaca waynu geli doonaa marka tribe-ka markii ay eeganay sheegayeen waxay yidhaahdeen Soomaalidu tribe maaha sababtoo ah sababtii markaa sheegay waxa kaloo iyaguna soo galay dadkii Soomaalida ahaa ee cilmiga lahaa dadku waxay u yaqaanaan aqoonyahan baynu dhahnaa laakiin maaha kelmadaas way khaldantay dadkii Soomaaliyeed cilmiga ee bartay cilmiga loo yaqaano social science ee af Soomaaligana lagu yiraahdo cilmiga bulshada markii ay dadkaasi markaas la wada eegeen maxaa u soo baxay waxa soo qaadanaya Rashiid Sheekh Cabdilaahi oo qoray buugga la yiraahdo qaran iyo qabiil laba aan isqaban waxaan anigu akhriyay maqaal uu qoray oo buugga ciwaankiisa wata maqaalkaasi waxaad ka heli kartaa war dheer markii aan maqaalka akhrido waxaad arkaysaa Rashiid wuxuu wax ku bartay Carabi waxbuu ku bartay English si fiican buu yaqaan labada markaad eegto waxaad arkaysaa markii uu maqaalka qorayay wuxuu maqaalka Rashiid Sheekh Cabdilaahi ku bilaabay in uu sheego oo horta marka horeba uu sharaxo micnaha ereyada intaan loo gelin maqaalka gudihiisa micnaha ereyada way la sharaxdaa markaas qofku isagoo micnihii waxaad uga jeedo fahmaya ayuu fahmi karaa marka maqaalkaaga waxaad uga jeediyo qoraalkaaga iyo doodaada markii uu soo qaatay Rashiid Sheekh Cabdilaahi laftiisu wuxuu soo xigtay markaa Lewis wuxuu sheegay in qoraalkiisa uu ku tilmaamay in marka laga hadlayo qabiil inaan kelmadda qabiil lagu cabiri karin kooxaha Soomaalida inaan lagu tilmaami karin kooxaha Soomaalidu inay qabiil yihiin sababtoo ah wuxuu Soomaalidu ma aha qabiil ma aha magaca Carabida looma isticmaali karo maxaa loo isticmaalayaa markaa sababta loogu isticmaali waayo waa maxay waxa loogu isticmaali waayay Soomaalida waxa loo isticmaalaa clan buu yiri waa runtii Englishta clan baa loo isticmaalaa ma arkaysid dadka cilmiga bulshada bartay ee ku talax tagay marka ay Soomaali ka hadlayaan ma arkaysid mar kaliya iyagoo qoraya tribe mar walba waxa la qorayaa clan waayo waxa loo qorayaa clan iyo tribe waa wax kala duwan maxay ku kala duwan yihiin Rashiid Sheekh Cabdilaahi aan soo qaato maqaalkiisa isagoo soo xiganaya isaguna oo faahfaahin siyaada ana ku daraya sharaxaadii uu sameeyay Lewis waliba Rashiid wuxuu ku sii daray Sheekh Cabdilaahi sharaxaadda kaga muuqdin intii Lewis maca wuxuu isagu u sii baynay luqadii Carabiga oo uu luqadii Carabiga markaa maxay ku noqonaysaa clan ayuu isagu sii sharaxay Lewis Rashiid Sheekh Cabdilaahi iyo guud ahaan cilmiga anthropology-gu maxay ku macneeyeen ereyga tribe oo ah qabiil oo qabiilkuna aayadii ay ka hadlaysay waa maxay micnihiisu waxay ku macneeyeen koox bulsheed mid ahaanteeda siyaasadeed waa political iyo xeer xidhkeeduba waa dual unity bal hadda u fiirso labadaasiba uu ku dhisan yahay dhul gooni ah okay maxaa kale astaanta kale leeyahay waa maxay awoodda taladeeda siyaasadeed waxay ka dhalataa dhulka ay degan yihiin tribe-ku waa maxay waa koox bulsheed siyaasadeeda iyo xeer xidhkeeduba uu ku salaysan yahay dhulka ay degan yihiin hadda maaragta wuxuu ku salaysan yahay dhulka u gaarka ah ee ay degan yihiin waana ummad ku wada abtirsanaysa oo magaceedu uu yahay dhulka ay degan yihiin balse aad u fahanto markaa tribe-ka saad usii fahanto because sharaxaadiisu way yara adag tahay markaynu u gallo clanka iyo tribe iyo clan way kala duwan yihiin clanka markaynu u gallo ayaad isaga dib ka fahmi doontaa waxay labadooda ku kala duwan yihiin markaynu isu bardhigno laakiin halkaa maxaan kugu tusayaa waxaad ka dhex eegtaa mar walba tribe-ka laga hadlaya aayadii ay ka hadlaysay lagu macneeyay iyo clanka markaad aragto si u kala duwan waxaad arkaysaa in aayaddu tribe-ka ay ka hadlayso aanay Soomaalidu lahayn qaab dhismeedka imika aan sheegay Soomaalidu male Rashiid Sheekh Cabdilaahi wuu sheegay Lewis wuu sheegay anthropologists waxay sheegeen Soomaalidu maaha tribe Soomaalidu markaa maxay tahay clan waa maxay clan aynu eegno clan wuxuu ku macneeyay Rashiid Sheekh Cabdilaahi marka loo rogo buu yiri luqadda Carabiga clan waxay noqonaysaa عشيرة af Soomaali waxay ku noqonaysaa xigto
ama waxa loo yaqaano tol wadaag ama abtirsiin wadaag hadda ma aragtaa si u kala duwan yihiin waaye haddaba waa maxay astaamaha lagu garto kalaanka ama waxa loo yaqaano cashiirada ama xigtadu kow waxa ay leeyihiin oo ugu horeeya astaanta lagu gartaa waxa weeye xigtadu wax xidhiidha lama laha dhulka ay degan yihiin kuma abtirsadaan dhulka ay degan yihiin waa koobaad cashiirada ama xigtada ama kalaanka waxa isku xidha waxa weeye waxa isku xidha oday lagu abtirsado soo laba maaha saddex abtirsiintaas ayay ku sii kala farcamaan gudahooda marka la soo galo oo ay maxay u kala baxaan jiribo iyo jibsino ilaa la gaarayo qoyska halka ugu horeysa aabaha iyo inankiisa loo galaayo waaye qodobka kale ee lagu garto waxa loo yaqaan kalaanka waxa weeye koox waliba waxay leedahay xeer u gaar ah gudahooda hadda eeg koox waliba maxay leedahay xeer u gaara oo gudahooda inaga u xaale iminka inaga markaad inoo fiirsato koox waliba waxaanu qabiilkan idhaahno koox qabiil waliba ila kelmadda qabiil ku isticmaalaha khaldan laakiin waxaan u isticmaalayaa waa kelmadda aad taqaanaan inuu ku celcelinayno sida khaldan u isticmaalno qabiil waliba ama beel cid waliba waxay leedahay xeerka u gaarka ah ayaa gudahooda ka jira waaye qodobka kale dhismahooda siyaasadeed dhismaha siyaasadeed ee uu kalaanku leeyahay waxa sal u ah oo sees u ah awoodda ay leeyihiin awood ay leeyihiin ayaa tilmaamaysa dhismahooda siyaasadeed waaye markaad eegto kalaanku wuxuu buuxiyey astaamihii ay lahaayeen kooxaha soomaalidu kalaan baa buuxiyey oo kalaan bay noqotay soomaalidii waayahay markaad u fiirsato kala duwanaanshaha labadaas waxaad arkaysaa in tribe-ka marka la micnaynayo iyo kalaanka marka la micnaynayo in soomaalidu kooxaheedan kala duwan aynu qabiilka ugu yeedhno qabiilka si khatam aynu isticmaalna kalbadda aynu qabiilka ugu yeedhno kooxahaasi waxay buuxiyeen shuruudihii uu lahaa kalaanku kalaan haddaad maqasho shuruudihii oo dhan bay soomaalida buuxisay kooxaheedii laakiin soomaalidii marka laga hadlayo tribe shaqo kuma laha waaye halkaa aynu yara istaagno waaye waxaan sii caddaynayaa in maadaama labadaasi ay kala duwan yihiin waxaad arkaysaa dad marmarka qaar tribe soomaalida ku isticmaalaya dadkaasi waxaad arkaysaa inaanay aqoon lahayn micnaha tribe iyo clan wuxuu ku kala duwan yahay maca englishtii inagu tribe ma dhihin waaye waxaa jira dad fara badan oo cilmi leh oo professor ah oo soomaaliya oo buugaag fara badan qoray buugtooda haddaad dhammaantood wada akhrido waxaad arkaysaa mid waliba wuxuu isticmaalayaa clan mid kaliya ma isticmaalayo arki maysid mar kaliya isagoo isticmaalaya kelmadda tribe waayo maxay tribe u isticmaali waayeen because waxay og yihiin maadaama ay barteen social sciences waxay og yihiin inaanay soomaalidu tribe ahayn oy soomaalidu clan tahay buugaagtaa maxaa ka mid ah dadkaa qoray aan in yar ka soo qaato aad bay u fara badan yihiin oo dee waqti baan wada helaynine aan 2 iyo 3 ka mid ah oo soomaali u badan weliba baraada tuso waxaa ka mid ah haddaan soo qaato professor xuseen burxan oo buugaag fara badan runtii qoray buug kasta oo uu qorayna wuxuu isticmaalayaa kelmadda clan mar kaliya tribe muu isticmaalay buugtaa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah number 1 politics of Cain number 2 oo ka labaad ah losing the art of survival and dignity in between three saddexdaa buugee uu qorayba markaad akhrido waxaad arkaysaa mar walba wuxuu isticmaalayaa clan tribe mar kaliya muu isticmaalay soo qaado Lewis buugaagtiisa waa kuwa iyaguna modern history of Somalia, pastoral democracy, understanding Somalia and Somaliland waa kaki buugta uu qoray oo dhan Lewis markaad eegayso mid walba wuxuu isticmaalayaa clan haddaan ku sii daro professor Siciid Samatar qoraaladiisa iyo buugtiisa haddaad u fiirsato Axmed Ismaaciil Samatar qoraaladiisa iyo buugtiisa dhammaantood waxay isticmaalayaan clan haddaba su-aal baa isweydiin leh halkaa waxaa inoo caddaaday oo ay dhammaantood isku wada raaceen inaanay soomaalidu ahayn tribe oo ay soomaalidu tahay clan waayo clan iyo tribe wax kale ma aha waa qaab dhismeed bulsho marka bulshooyinka adduunka la eegayo san hore usoo sheegay qaab dhismeedka bulshada u taalo ayaa magacyo la kala yidhaahdaa magacyada la kala yidhaahda bulshada loo kala yaqaano ayaa waxa ka mid ah tribe-ka iyo clan-ka soomaalidu markaa tribe marka laga hadlayo shaqo kuma laha may buuxin shuruudaha saynu soo sheegnay maxay haddaba buuxiyeen shuruudihii clan-ka oo dhan bay buuxiyeen halkaa iyada istaag halkaa markaynu istaagno aayadda dib ugu noqo
aayadda ilaahay markuu yidhi qabiil uu yidhi qabaayil baanu idiin samaynay waxa lagu macneeyo qur-aankii nimankii tafsiiray culimadii walaal idiin soo sheego dhimi dhammaantood u fiirsada waxay yidhahdeen waa tribe bay yidhahdeen hadda waa nimankii culimadii waaweynaa ee tafsiirayay ee macneynaya qur-aanku tribe bay ku wada sheegeen sax tribekii markii lasoo qaadayna soomaalidiina dadkii jaamacadaha oo dhan dhigayay ee cilmigan social science-ka barto dhimi waxay ku yidhahdeen iyo anthropology iyo cid waliba waxay ku tiri soomaalidu waa clan ee maha tribe ayaddina maxay tiri hay yidhi waxaan ka hadlayaa tribe halkan maxaa kaaga soo baxay ayaddu inagaba inaga hadli mayso laguma sheegi karo soomaalidu waa tribe carabida macaa marka loo noqdo soomaalidu qabiil maaha soomaalidu waa cashiiraynu nahay cashiiradana ingilishta maxaa lagu yidhahdaa clan soomaalitaas isu haysatay imaka I hope inaan u baahnayn mar labaad ku celiyo kusoo cisho mar labaad haddaad u baahantay taa markaa waxaa isweydiin leh haddii aynu noqonay clan oo cashiiro aynu noqonay waxaan soomaalida ee la yidhaahdo waxaan u bixiyay anigu beelo tolbadhe ama beelo ama tolbadhe beelaha soomaalida ila qabiil imka isticmaali maayo anigu yo because qabiilka waxaan u isticmaalaynin dee si khaldan baynu u isticmaalay beelaha kala duwan ee soomaalidu ay leedahay ayaa aniga doodaydu waxay tahay in aynu inagu samaysanay iyo abtirsiinta macaa ku duugan ee odayaashan la tirinaya 20 la gaarsiinaya wax la dhici ka jira ma jiraan waa khayaali aynu samaysanay oo aynu inagu inta iska samaysanay aayadii ilaahayna si khaldan ugu macnaynay si aan kugu cadeeyo inay Soomaalidu waxaan beelaha la yiraahdo kalaanka la yiraahdo cashiirada la yiraahdo maaha qabiil maaha cashiiradan say Soomaalidu u samaysatay si aan taa u sharaxo waxaan ku bilaabayaa waa maxay baahida horta keentay inay Soomaalidu waxaan samaysataa waa kow talabaad sideebay u samaysmeen waxa loo yaqaano abtirsiintu waa waxa isku xidhay labadaas markan kaaga jawaabo ayaa waxa ku soo bixi doona inuu yahay waxa la isu geeyay oo aanay aayadda quraanka ka hadlaynin inaguna ina baabiyi waxa la yiraahdo cashiirada ama clanka ama xigtada aynu bixinay ee ay Soomaalidu leedahay sidoo u bilaabay wuxuu u bilaabmay markaad u fiirsato ee aad akhrido ama aad dhigato anthropology-ga waxaad arkaysaa marka dib loogu noqdo bini aadamka taariikhdiisii intii oo bilaabatay qoraalku iyo intii ka horeysay ee aan qoraalku jirin sidee baa loo heli karaa taariikhdooda waxa hela qolada loo yaqaano archaeologist oo baara isku soo wada duubo waa sheeko dheer oo xaqinta gali kari maayo laakiin marka dib loogu noqday waxa la ogaaday sidee bay u samaysmeen waxa loo yaqaano cashiirooyinkan iyo beelaha Soomaalida kale marka laga hadlayo ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu nabi aadan iyo xawo jannada ka soo saaray dhulka ayaa loo soo dadajiyay dhulka waxay ugu yimaadeen laba arrimood marka dhulka isku wada darto dhulka ciidaad marayso iyo waxa laariya waxa ku noolaya badiis iyo barigiisa marka isku darto laba arrimood ba ka jira labada arrimood ka jirana waxa weeye wax nafta bini aadamka khatar ku ah iyo wax faa'iido u leh waa labada way because labada waxaan ahayniba ma yaalaan kow maxaa markaa loo baahan si aad isaga ilaaliso khatarta wixii faa'iidana aad uga faa'iideysato markii bartaa la keenay nabi aadan iyo xawa alayhi salaam ayaa maxaa dhacay way tarbeen ubad badan bay dhaleen ubadkii markaa maxay sameeyeen kaymihii bay ku nool yihiin kaymihii markaa bini aadamku wuxuu soo maray isla dheer buu soo maray si kaynta looga soo bixi lahaa muddo iyo qarniyo dhan iyo boqolaal iyo milyaanaad sanadood bartaa lagu noolaa maxaa jiraan lahaa libaaxii iyo shabeelkii iyo jabisadii iyo ugaadhii iyo xayawaankii iyo wixii oo dhan bini aadamkaasi maalinba waxbuu baranayay kaynta waadiga arkay haddaad daawato barnaamijyada kaynta waxaad arkaysaa xayawaanka kaynta ku nooli sida ay u nool yihiin sharciga kaliya kaynta yaalana waxa weeye in lagu cuno ama aad wax cunto eat or be eaten sharci kale ma yaalo 1,700,000 years ago, the world was filled with extreme danger. Just to stay alive was the ultimate survival challenge. Hunt or be hunted, kill or be killed. kayntaana waxa yaalay sharci kale ilaa maanta sharcigaasi kayntii uu yaala adduunku ma yaala waa maxay sharciga kaynta yaala waxa weeye cun ama ha lagu cuno
eat or be eaten ama wax dil ama hal lagu dilo ma taalo waxa la yiraahdo xuquuq al-insaan iyo cadaalad iyo dulmi iyo qurux iyo waxaan ku hadalnaa kaynta ma jiraan kaynta waxa kale yaala waxa weeye waa la iswada cunaya ama waa lagu cuni ama waxba cuni labada wax ka dhaxeeya ma jiraan hadaa daawato dokumentariyada xayawaanku kaliya casharada laga bartay ugu waaweyn waxa kamid ah meesha rule ma jiro sharci wax leeyahay kaba shaqeeyo boolis iyo waxaad ka hadlayso ma xayawaanka ma boolis ba dhaxeeyo shuruuc waadiga arkay xayawaanka meesha ku nool mid waliba gaar buu naftiisa ka hayaa inuu wax dilo ama la dilo wax uga dhaxeeya haba yartay ma jiraan bini aadamku markuu xayawaanka hadaba la noolaa maxaa markaa jiray ila bini aadam kala duwan boo ayaa meesha wada degan waxa jira nin iyo gabadhiba meel degan waxa jira laba nin oo walaalo saddex nin oo walaalo meel degan nin kaligii socda ayaa jira dadkii saa u noolaa kaynta ay ku noolaayeen waxa xaqiiqo ah marka bartaa ku nooshahay inaad kaligaa sarfayfi karin ma noolaan karaysid cidaad ku tirsataa baad u baahan tahay waayo sababtu waa maxay khataraha kugu weegaarsan baa wax walba ka daran maxaa taa ku raaca bini aadamku xayawaanka iyo noolaha kaynta ku nool waa ka ugu daciifsan waa ka ugu jilicsan sababtana waan ku tusaya sababtu waxa weeye xayawaanka kaynta ku nool mid waliba wuxuu leeyahay wuxuu isku difaac haddaynu iminka soo qaadano xayawaanada kaynta ku nool mid waliba wuxuu isku difaaco waxyaalaha ay isku difaacaan bini aadamku ma laha maxaa ka mid ah qaar shimbiraha ka mid ah shimbirtu markay meesha soo istaagto nafteeda u baqato way duulaysaa ma hayna shimbirta la cuno waa la cunaa laakiin waxaan ka wadaa waxay isku difaacdeen dhulka way kala kacaysaa maxaad cuni abay kala duushay kow masku isagoo itaal kale waxa lagaga baqaa waa sunta lagaga baydhaya oo wax xayawaan fara badan aanay ku cunin maxaa ka mid ah sakaarada iyo deerada yar haddaad eegto orod ayay markay orodo cid gaadha way yartay bahalka jiitaa la yidhahdo ma qabta libaaxu kuma harraado oo iskuma dayo inuu eryado marka maxaa nidhi shimbirtu way kaa duulaysaa masku sun buu isku difaacaya sakaarada yar orod bay leedahay bini aadamku intaa midna mare ma duuli kartid sun ma lihid hadda baro fiirso oo sun aad isku difaacdo ma lihid kow orod dheereeyana ma lihid maxaa kale raaca bahasha la yidhahdo wiishu waxay leedahay jir adag oo macaacid miciyaha libaaxa markay weynaato aanay geli karaynin iyo fool dheer ay isku difaacdo iyo quwad intii midna ma lihid maroodigu xoog buu isku difaacaa xooggiina ma lihid haddoo fiirso jirjiroolaha ugu yaroo jirjirooluhu geelku koro isu ekaysiyaa su isaga qariya wixii cuni lahaa tiina ma lihid balse laakiin waxay leeyihiin wax ka duwan xayawaanku aanay lahayn waa maxay karaama ilaahay markuu qur-aanka inoogu sheegayo uu leeyahay ila bini aadamka waanu karaamaynay fahan karaamadu waxay kuu qabatay meeshaasay kaa soo saartay meesha sidaas ah ee khatartaa le bini aadamka waa la cuni jiray easy baa loo cuni jiray sida xayawaanku kale la cuni jiray hadda waxaa la soo saaray lafa bini aadam oo godad ay geli jireen libaaxyada iyo ay ku noolaayeen lafa bini aadam oo carruur iyo dad waaweyn baa laga soo saaray oo bartaa lagu cunay laakiin bini aadam muxuu kaga baxay ilaahay wuxuu kaga baxay ilaahay wuxuu inoogu faanayo oo aakhira laynagula xisaabtamayo oo ah karaamadii caqligii karaamadu waa caqligii muxuu bini aadamkii markaa sameeyey itaal kale ma lihid ilaa waad aragtaayo waxa laayo xatay ma jirto koogu jilicsan ee daciifkaaba tahay waa inaad markaa la timaadaa ilaahay wuxuu ku tusayaa wax wal oo nool waxa la siiyay xirfad gaar ah xirfadii ugu sarreysay baa bini aadamka la siiyey oo ah garasho iyo caqli bini aadamkii markaa muxuu sameeyey kaynta markii lagu jiray waxaa soo khataraha iyagoo kugu weegaarsan oo aad arkaysa ku dhex nooshahay waa anigii sheego kaligaa ma noolaan kartid waxaad u baahatay cidaad ku tiirsato markaa maxaa markaa dhici jiray xayawaan kale marka ka timaado waxaa jiray waxa la oran jiray fulkaana qarxaya ceel baad ku dhacaysaa geed baa kugu soo dumaya adigoo sakaaro yar ugaarsanayoo sakaaradii intaad xidhatay dabiru dhiga uu galay oo aad ku sii socoto isla qaabo ayuu libaaxaga dambe kaaga imanaya ama shabeel ama harimacad ama maska la yidhaahdo bayfanka ama jabisada yidhahdo geedka kaaga soo daadegaysa isku kaa duubaysa bal waxaa soo khatar oo fiirso taa maxaa dheeraa waxaa dheeraa dad kale oo bini aadama meesha kugula nool dadkaasina ilaa waa dad eryarayo iyagaba la cunaya kuu nixi maaya adiga cid isu naxaysa ma jirto therefore sida haddaba u badbaado waa inaad heshaa dee kooxaad ku tiirsantay ilaa cabsi baa jirta cabsi iyo baqdin baa jirta waxaan ognahay maartay in yacni qabaa'ilkan waxaan samaysmay oo aan soo sheegnay waa wax loojika ahaa in laysto wax duruufo dadku kalifay waayo dawlad ma jirin xoolaad leedahay dawlad ku difaacaysa ma leh maxaa danta kugu kalifaysa inaad maartay wax ku tiirsanaato Soomaalidu waxay tiraahaa buur ahaw ama buur ku tiirsanow buur ahaw maxaa waa qof isku filan is difaaci kara ama waa inaad wax ku tiirsanaataa
haddaad wax ku tiirsan tahay associated aad qoladaas ku noqonaysaa marka miyiga markii la joogay waa gar oo dowladna aanan jirin in qabyaaladaas waa survival nooc oo maaragtay oo waxa waaye oo nolol si loo badbaadi lahaa xoolahaaga iyo naftaada loo badbaadin lahaa ayaa qabiilka ama qabyaalada in la isbahaysto oo maaragtay geela la dhaco la dhiciyo laga soo dhiciyo waxay ahayd waa wax dan ku kalifaysay walow diinta ay maaragtay aanan ogoleen marka qabiilkii waxaan kusoo kobakobay waa dad isbahaystay oo maaragtay duruufahaas ku kalifay so kooxda marka doonayso inaad ku biirto meeshaasna cidda awoodani waxa weeye sida loo kala dad badan yihi tusaale ahaan hadday imika jirto koox ka kooban kasoo qaad 20 qof ama 10 qof iyo idinkoo 2 qof ah marka la iska soo horbaxo idinkoo ugaarsi tagay meel la seexda ma jirtay godonbay dadku ku noolaa caveman baa la oran jiray marka saardo ugaarsi tag ay ka soo horbaxaan idinkoo 12 waxaad filanaysaa ka soo qaad waa adigii xaaskaagi waxa idinka soo baxay koox baa idinka soo horbaxday 8 nin iyo 2 dumar ah maraalay marka lagu arkay gabadhaadii la hunguriyay kayna waa la dhex maraya waxaad sameynaysaa kaynta la iscunayo ee sharcigeedu uu yahay cun ama ha lagu cuno dil ama ha lagu dilo ila kaynta intaasaa taale maxaad samaynaysaa waa laga qaadaya gabadhii waa lagu dilaya ama inta lagu qabtaaba lagu odhaya laga mid noqo badanka waa la dili jiray halkaa marka joogto waxaad ku khasban tahay inaanad ka soo qad gabadhii baad wadata waa lagaa horyibi khatartii baad aragtay gabadhii baa lagaa qado waad baxsatay kaynta baad ku dhex nooshahay waxaad ogaatay inaanad dee noolaan karaynin oo gabadhaad kasta soo qaadasho lagaa qaadayo ama aanay noloshaada suurto galaynin tii maxay markaa keentay in aad cid ku tiirsanatad bulsho ku xidhanto bulshooyinkii markaa halkaa joogay kala duduwanaa cid waliba cidda ugu tirada badan leh ayuunbaa awoodda lahayd cidda ugu tirada badani koox iyagoo ah ayay ku galayaan markay wax doobtaan ka soo qado waxbay tabteen 8 nin bay isku raaceen iyo 2 dumar ama 5 dumar meeshii baa la galay intuu ninkaas ugaadha soo furayo qaar baa ka dambeeyo sii jeedo ka ilaalinaya dee libaaxii iyo wixii weeyma lahaa soo ma aragtid markaasay suurtagelaysaa inaad sakaarada yar qaadato haddii kale kuu suurtageli mayso markaa cid waliba meesha cidda tirada badan ayuunbaa survivoraysa cidda tirada badan ayuunbaa helaysa cuntada ugu fara badan dumarka ugu fara badan leh ragga ugu fara badan leh nolosha ugu macaan ee difaaca leh iyagunba ku noolaanaya taasi markaa maxay sababtay in qof waliba uu doono inuu cid ku biiro haddaba isku biiritaankii baa dhibtu keenay waa meesha ka bilaabantay isku biiritaanka waa la gartay okay isku biiritaanka marka la isugu biirayana la isugu biiri maayo waxba aynu isu nahay waxa la isugu biiraya la isugu imanayaa sida la isu ogolaado markaa maxaa dhici jiray tusaale waxaa dhici jiray ka soo qaad 10 qof iyagoo meel degan ayaa halkana waxaa degan 10 kale laba ka mid ah 10kii iyo 10kii oo iscaabiyey ayaa 10kii midigtaada iyo bidixdaada lagu kala bixinaynaa 10kii bidixdaada laba ka goosteen oo yidhahdo 10 kale lama joogi karo kuwii kale ku beereen 12 ama 4 baa goostay 4 bay noqdeen kuwana maxay noqdeen 6 4 bidixda way ka adkaanayaan haddii la soo weeraro markaa ilaa markaa 10 baa lahaa soo ma aragtid sheekada waxaan idinku soo gaabinayaa si u fahantaan ayaan usoo qaadanaya dee sheekadu way ka culus tahay intaa markaa dadku way kala guurguuri jireen guruub baad ku jirtaa koox waad ka baxaysaa koox kale aad ugelaysaa dad kooxdaas saluugto ama aad diido maxaa markaa la arkay in kooxda 10 markay 4 ka baxaan ay kuwa u tagaan kuwa qaar kale ka sii baxaan dee dhib bay keentay adigoo awood lahaayo dadkaagu badnaayeen marka kolba lagaa bixi cidi kaa baxdo khatar bay keentay maxaa markaa la sameeyey si aan loo bixbixin oo cidda kuu timaada mar dambe aanu bixin dawada jawaab keentaa abtirsiin wax la yidhaahdo oo lagu odhanayo yaa lagu abtirsan jiray waxaa lagu abtirsadaa kow ninka idinku weyn hadda bareeg oo la odhanayo ama waa awliyo ama la odhanayo waa nin karaamo ah oo le yani ama la odhanayo waa nin awliye ah ama habeenkii buu siraataa caynkan buu noqdaa ayaa la odhanaya waxaa lagaga dhigayaa inuu ka awood badan yahay intiina kale oo uu leeyahay awoodo rabbaani oo aydan lahayn ila dadkii ku jiro aqoon kale leeyo wax kale ma lehidine markaasaa lagu odhanaya habeenkii buu siraataa markaasaa sheekooyin loo samaynaya aanu isagu lahayn sheekooyinkiiba madaxa lagu shubaya waad baqaysaaba markaasaa lagu odhanaya habeenkii haddaad seexato oo meel kasta joogo uu ku baqaya markaasaa lagu leeya wuxuu ka soo warramaa idaafayta ayuu ka soo warramaa habeenkii markuu seexdo waxa maxaa loo samaynayaa in lagu cabsi geliyo meeshaad ku nooshahayna cabsideedu inta lagtay soo maaragtid ninkanna waxaa lagaaga dhigay inuu ruuxaan yahay nooc kale oo wax kale la shaqeeyaan oo awoodda kale leh therefore waxaa lagu leeyahay isagaa inoo aabba ah cidda ka baxdana waxaasa ku dhacaysa halkaasay ka bilaabantay kooxdii kama bixi kartid markaa lafahaagii baad u baqaysa waxa lagu sheegayaa hebel oo baxay wixii ku dhacay inay ruuxaani heshay ee wax kale ku dhacay dunidoo dhan baa waxaan lahayd inaga keligeen maaha
وفرصة وحلالية أنثروبولوجي ونخرية واضح كيسان إلا تشاينا إلا سنتراليا سود أمريكا إلا أفريقيا مركز أنثروبولوجي أخذه إلى ما كنا نحتاج واحد كوارك وإسكو حلو وذا استعمالي بكسوة بني آدم نعم تامر كل سمي نين كان له أكتر سنة laga dhigayo inuu khatar yahay oo habeenkii saraato waxaad ku fahmi kartaa mataqaanaa u fiirso Soomaalida waxaad u fiirsataa markay Soomaalidu ka hadlayaan cidda dhashay ee sheekooyinka yar gaaban ee lagu leeyahay Sheekh Isxaaq iyo Sheekh Daarood iyo Sheekh Ciise iyo Sheekh Samaroon iyo waxa khayaaliga ee waxba aan ka jirnay beenta nimanka u fiirsada waxay ku sheekeeyeen ay dhahan mataqaanaa anu yar baan garanaya waxa lagu leeyahay Sheekh Isxaaq inuu soo baxay wuxuu soo raacay bahal masalih ama salih markaasuu salliga intuu carabta ka soo raacay buu badii ku soo dul maray ilaahay baa ku dhaartay loogu sheekeeyay Sheekh Daarood intuu soo baxay buu soo duulay bal waxa la inagu sheekeynayay eeg imika cid isuguma sheekaysatay because dadkii baa imika wax fahmay laakiin anigu waxaan iyadoo la isugu sheekeeyo masallu soo furay awliyuha laga dhigayo awood aanay dadka kale lahayn because aabaha abuha marka wuxuu ahaa sheekho awliya aho ilaahay ka awoodo kala siiyay oo cayn ka laha waxa la wax ka jira ma jira waxa la wax la siiyay habayna niman carab ay haayeen Sheekh Isaaq iyo Sheekh Daarood iyo niman kala sheegaya niman carab ay haayeen oo wadanka yimi oo diinta fidinayay gabadhii ku guursadeen wuxuu dhashay baa laga yaabaa dadka ay ku milmaan shaqo bay lagu lahayn laakiin waynu ka horreynay waynu ka weynay mana aaminsan anigu waxa abtirsiintii markaa maxaa dhacay kayntaa markii lagu jiray waxaa dhacday qofkii markuu soo galo kooxdii ka soo qaad ee uu aaminsan yahay gurubka inay yihiin ayay laba qof u yimaadeen ama qof u yimi inaan iyaga xaaskiisiiba u yimi ama ninba u soo galay ninka iyo xaaskiisii ayaa soo galay ilmo yar wato tusaale ahaan markuu u soo galo wuxuu arkay inuu helay difaac wixiisii loo nabadgeliyey inuu dadkii ka mid noqday maanta laga bilaabo inuu ugaar fiicanna helayo difaacna helayo nin dambo gabadhiisa ka qaadayaan aanu jirin markuu fikiray ilmihiisi wuu yar yahay ilmihiisi dadka kama mid aha laakiin caqliga wuxuu ku siinayaa ilmahaagaasi siduu u badbaado oo aanu kayntaa wixii kaa soo qabsaday aanay ka soo qabsanin kooxda ayaanu ka dhex bixin marka ilmaha dantiisu maxay ku jirtaa sheekada macaa odaygu hadduu fahansan inay khayaali tahay inuu ilmo yar run u qaato waayo ilmo yar run u qaato danbaa ugu jirta uu sarfayfayaa dee haddii maanta adiga lagu yidhaahdo ilmahaaga yari meesha aad joogto gurub inta u timaadaan koox inuu kooxdaa ka mid yahay inaad ka dhaadhiciso oo marka uu noolaado uu kooxda difaaco oo uu nolol fiican la galo iyo inaad runta u sheegto tiraa waar kama mid nihin ummadan uu hadhowto intuu dawaqo iskaga tago oo khatari ku dhacdo keebaad u doori lahay dee waxaad u doonaysaa beerta doonta ha noqotay wixii la doona la sheegay ilmo yar inuu sarfayfade sheekada waan dee fududaynaya waan idiin sheegay si khafiifa idinku fahantaan baan idinku sharaxaya qabiilooyinku saas ay u kala gurguri jireen sababtii markii la isku xidhay si aanay u kala gurinna xabag baa la isu mariyay guluw wax la yidhaha xabagta isu haysa ummadda ee aanu qofku awood lahayn inuu ka baxo oo group kale ku biiro koox kale ku biiro xabagta isu haysana waa maxay abtirsiin khayaaliya ayaa la abuuray oon jirin abtirsiinta in la abuurayna waxaan kugu tusaya oon kugu caddaynaya waxaad eegtaa oo nimanka ku tusayaa abtirsiintii soomaalidii hore ay lahayd hil abroone ninkii loolan jiray soomaalida dhalay ee hil abroone la yidhaahdo iyo waxaad eegtaa abtirsiinta maanta aynu haysano meeye hil abroone meeye ila waynaga nidhi Sheekh Isaaqna waa Arab Sheekh Daaroodna waa Arab Sheekh Samaroonna waa awliyo sanbu hayo waxa la sheegayo hil abroone meeye badeek hil abroone isagaaba inoogu dhow because magaciisu waa pure Soomaali Soomaali هيل وذكرنا كلمة waa هيل ودوا نكي وقفكي هيل كلها أما هيلنتي وي أبرونا ما قرنا سمعناه هذا وحوي وأب يصير صوم مقشان وأب وأصل ومش كسر كذا أب ما هي أبرونا وأنا أبكي سيرونا وحلوقة هنا وأنا نصبها حتى نمكن ما تستعمل العربي ده نعم ما هي الأبرونا برهذا واحد يتصل بالأبترسين تاي لعبة اللي كل شيء أبترسين تسوى وضع الصومالي وأبترسين تاني خرع برو يعرف يصير البلد الدينية يعني abtirsiinta waa la baabiyey waxa la inoo keenay abtirsiin wada carabiya kuwaasi adliis kuma jirin kalmada carabiya Soomaali pure bay haayeen abtirsiinta dhalinta la baabiyey ayaa waxa la soo dhexgeliyay abtirsiin cusub markii diinta islaamku ay soo gaadhay halkeen oran lahay lug abtirsiinta hore wax la samaysto dabanaga idin ka soo sheekeeyay halkii la oran lahaa waa abtirsiinta waynu haysanaa muslimiina waynu nahay diinta ilaahayna waynu qaadanay dee maaha anigu in carab ku abtirsado quraysh maxaa quraysh ka abtirsan quraysh ku dadka aas jiray meena hayn quraysh nimankii diinta ilaahay ka soo jeeda baabinay meena hayn quraysh taadbooda sayid ku abtirsato nabiga uu ka dhashay calaysa laakiin kuwii nabiga dilayay haay nimankii doonayay diinta ilaahay nuurka ilaahay inay damiyaan quraysh meena hayn
قريش الصومالية هاو أركنا إن يهين ده تضحك ونعكس كم ونعكس أنا نمك الدين إلهي نلقي وجوه الريم إلهي شريد دنيا الدنيا ده قريش بيها نبي عليه السلام وكل شيء لكن نبي عليه السلام هكنت المعبد هو قريش نبي كوي قريش أوكي اسود وحلا سبعي أبترسينتا نوع عاصة ولا بابي أبترسينتاس ولا بابي صوماليا محل سبعي أبترسين تبع عربي اللي بدله مركز حاجة لو أبترسنا يا صومالي مركز أبترسنا يسوع وحو أنتوا عربي تريو كونيا قريش بانكلا على طول في واي قريش بتكشي صوما ها هيل أبروني هيل أبروني إيه قبيلوين كأني مجاعيدي يوحي عن روح الماء هذا في كو تسوى كو لا بد أسمح لك تصيّع نك صومالية ذو هيل أبروني عن إدين صورة إسكسر الحساري كرهبية لا تبجت ولا يلوب بدله هذا تابريجا هوري ترى يوصل بيستطيع يمكن يلوب بدله عربي اللي نقول يقول يقولي كان محاكنتي وحكينا مركي دينتا إسلام خلقاتي أيها الصومالي دي مركي وحي يلاهدين أو قريش بنو قالوا وين لحدين حتى بريك صوتي أقول لحدين نوع محي كمان لحتين هيل أبروري هدول دبيهي عبترسيته هوري هدين ربطي حقيقي اللي هذا حي فونديشن هذاك يساس هذاك اللي هذا حي وما لحتين قريش لكن قريش واحد يقول لحتين عبترسيتي هوري هدين لوجين فوق أنا محبك تشيلنا فوضاحي واحد اسكا سميستو كينتو كوتشريو aan ku sheegay ay survival ka yeelad badbaada sababtay way tan dambe arabida wala samaystay tan dambe lafteedu laguma joogin hadoo fiirso tan dambe maxaa la sameeyay waxa cad oo la cadeeyay oo aad arkaysaa markii la dirsay Soomaalidu beelaheeda waxa la yiraahdaa qabiil maaha waxa la yiraahdaa xigtada Soomaalida ama cashiirada waxa la yiraahdaa kalaanka lagu dhahay Ingiriista waxa kooxahaasi way isku biiri jireen waxaad arkaysaa imika Soomaalida hadda la sheekaysato qabiil waliba wuxuu qabiil kaasaan lagu soo biiriyay kaasaan lagu soo biiray kow waxaad u fiirsatay oo kale qabiilooyinka Soomaalida mucjisada ku arkaysa waxa kamid ah haddaad qabiilka eegto mid waliba la budhalay waxaan ku leeyahay hebel iyo hebel weey waayo ila Soomaalidu dad fara badan bay dhali jirtay maxaa laba midho naga dhigay marka la bilaabayo bal u fiirso qabiil kasta markuu bilaabayo ama jilib waliba laba ku bilaabma marka soo waxaan ku weydiiyo waa maxay labadani markaas maxaa kaloo jira taa waxa inoo macnaynayaan idinku dayn doonaa Professor Abdalla Umar Mansour oo ku takhasusay buugna ka qoray oo hadlaya baa idin soo dayn doonaa sida Soomaalidu isugu biiri jirtay marka anigana waxaan diiradda aan saaray maxaan ku yiraahdaa abtirsiimaha af Soomaaliga oo kala gedisan oo u muuqdaan kulligood isku nooc inay yihiin oo isku qaab ay u samaysan yihiin magacyada haba kala duwanaadeen marka abtirsiimooyinka ay leeyihiin ayaa waxa ka dhex muuqda in saddex lakab ay kala leeyihiin oo waxa marka taas waxa ii dambaysay waxyaabaha maaragtay in ay Soomaalidu isu timid waxa waaye abtirsiimooyinku dhexdooda hadaa fiirisid waxaad arkaysaa laba ay u kala baxaan aan ka soo qaadno maxaan ku yiraahdaa Soomaalida hil waxay u kala baxdaa sab iyo Soomaali aan ka soo qaadno maxaan ku yiraahdaa kablalax waxay u kala baxaan laba ay u kala baxaan ay u kala baxaan oo maartay laba ay u kala baxaan maxaan ku yiraahdaa hawiyaha hadaa fiirisid waxay u kala baxaan iyagoo lix ah laba koox ay u kala baxaan waxaad arkaysaa laba inay maartay u kala baxaan maxaa labadan keenay aan iri haddii odagii Soomaaliyeed ama odayaashii hore Soomaaliyeed naga badan oo guursan jireen oo ma jirin maartay wax ay isku kontroolaan ilmaha lagu kontroolo oo ilmaha laba kaliya inay dhalaan waxa 5 8 9 10 ay dhali jireen ka badan ay dhali jireen ma jirin birth control ama malayn la yiraahdo ma jirin marka ilmahooda waxaan arkaynaa inay laba ay yihiin labadan marka maxaa keenay aan isweydiiyay oo maartay ilmihii laba la yihiin ay uga badnaan waayeen waa kan halka aan ka soo qaado waxaan iri hil sab iyo Soomaali ay u kala baxaan irir waa ogtahay Soomaalida 9 waxay dhaqan ahaan waxay sheegaan odagii Soomaali 9 ilmo ayuu dhalay mid kamid ah oo ugu tarma badan waxa la yiraahdaa irir wuxuu dhalay hawiye iyo aji qabiil aan laba aan lahayn dir hadaan aadno waxaad arkaysaa ilmihii madaluug mid la yiraahdo ayaa kamid ah oo u kala baxa
wuxuu dhalay gadabirsi samaroon iyo soo raac ayuu noqonayaa. waa ajuuraan waxay u kala baxaan waalmuge iyo waaqle. waaqle waa kan waaqa leh iyo waalmuge. maxaa labadan marka ayaan ku wareeray oo maaragtay ay keliya u hareen. waxaan u fasirtay marka in ay yihiin laba reer oo isbiirsadeen, oo maadaama soomaalidu maaragtay reer guuraa ay ahayd. markii aan sheegay ninka gaalkacyo ka yimid oo beledweyne imaanay, gaalkacyo reerkiisuu deganaa, oo geelana soomaalida dhaqan wuxuu u lahayd inay iska dhacaan. hadduu yimaado beledweyne reerkiisa waa kasoo tegay oo ka heli jiray difaac. haddii uu keligiis meel dego qabiilkeygan haysana uu yiraahdo geeli waa laga dhacaya. marka waa soomaalidu waa tii maaragtay niman tol lahayn geeliisa yani xero kuma waalan saa carabe uu lahaa oo kale wax u eg magaratay. marka maxaa danta ku kalifaysaa in uu sheegto cidda meesha uu ugu yimid ayuu sheeganaya. marka muxuu noqonaya waa function, waa qeyb, kana waa qeyb qabiilkiisii hore waa ka noqonaya. marka qabaailkan marka waxay noqonayaan laba nooc ayay maaragtay qabaailka u samaysmayaan. reer badan oo maaragtay xoog leh, xoolo leh, boqor leh, waxooda la soo guuraya ay u yimaadaan reer yar meesha degan, kan yaraa la sheeqina oo dad sheeganaya. haddii qof oo carab daraadeed uga soo cararay ila meelahaas soomaalida waxay isku qabsan jireen maaragtay boqornimada iyo saldanada isku qabanayeen, ama waxyaabo kale meel ka soo cararay, ama abaara ka keeni karta, ama maxaan ku yiraahdaa dhibaato kale ayaa ka keeni karta meeshii, ama daaq ahaan u imaanaya. cidduu u yimaada ayuu sheeganaya. ciddaas marka soomaalida dhaqan waxay u leedahay, khaasatan hawiyaha iyo daarood waxay dhaqan u leeyihiin qofka yimaada dad sheeganaya, xooluhu neef lo-aw gowracaya oo dadku u qalaya, waliimeynaya, meeshaasuna ku dhaaranaya inuusan sheeganayn qabiilkii. markaasaa laleeyahay annaga kaa damaano qaadayna xoolahaagi iyo adigaba annagaa naga tirsan tahay, cadowgaan waa cadowgeen. meesha ayaa maaragtay qofkii ka mid noqonaya. marka waxaad arkaysaa laakiin saas ay tahay reer ahaan gooni waay, korkaas ciddii qabiilkuu sheegana laantii inta lasoo qaado ayaa lagu daray. marka ma waxaad qabtaa waa dan wadaag, tol wadaag iyo dhiig wadaag ma? aywa taas waaye. wuxuu ka sheekaynayaa soomaalidii oo intuu mid soo goostay oo reerkoodii ka yimi qolada kale u yimi oo la leeyahay ma lagu soo biraysa ha neef baa loo qalaya. waxaa lagu dhaarinayaa inaanu dib dambayso uga abtirsan qoladu ka yimi oo iyaga ka mid noqdo. hadda waa Soomaali, markaasuu ku abtirsanaya, neefkii baa la qalaya, iyagiibu ka mid noqday, abtirsantii sidii uu ku qaatay. waa hadda waa Soomaali. waa beriyo dhaweyto professorka ka sheekeynaya dhegeysta. professorku muxuu inoo macneeyay siday isugu biirayeen qof dhan oo abtirsiimada intuu ka soo goosto abtirsiimo cusub qaatay. anna maxaan ku idhi kaynta markii lagu jiray abtirtiinta inta la samaysto ayaa qofka ku soo biiraa gruubku ka mid noqonaya. waa sidii unbaa socota biniaadamku waa sidiisii. soomaalatan anthropology waxaa soo darsay soomaalida ka dhex muuqata. maxaa kaloo jira waxaad u fiirsataa qabiilooyinka waxaan beera qabiilka waxaan isticmaalaya because qabiilooyin baan isticmaalnaa laakiin maaha qabiilooyin. beeraha Soomaalidu ama xigtooyinka Soomaalidu waxa kala arkaysaa markay tirinayaan waxay ka odhanayaan laba hadhoway qaar afar shan noqonayaan. waxaad arkaysaa godad bannaan. markaas wuxuu ka odhanayaa godka odaygii dhaldhalay baa wuxuu yidhi muuqaaga mooye walba magacaaga mooye muuqaa lama arko, oo wuu habaarayo odagoo geed hurda ayuu waxaa ku sameeyey ama uu ka cadhaysiiyey, ama odaygu xanuunsanayuu qaadi waayo. waaba identical sheekooyinkoodu. odayga markuu xanuunsan waayena odaygii baa inkaaray. marka qolada lama arko, waa la maqlaa un bay ka odhanaya laakiin lama arko. qoladaa kale laba magacoos astaan bay saa isu saarayaan, mabaad arag boqorada weligood. godadkaasi maxay yihiin miyaa taqaanaa? godadka waxaa loo baneeyey, waxaa la doonayaa xulufo cusub markay timaado in godka lagu buuxiyo oo la yidhahdo waa nimankii laydma arko oo way ducaysteenoo sheegha markaa la samaynaya. ilaahay baa ducadii ka aqbaloo dib bay noogu soo noqday. waa adiga ilaa imika arkay kooxo isku biiraya. siyaasad ahaan maaha, qabiilka abtirsiimada godad baa loo sii baneeyey gruubka dambe yimaada in lagu shubo la yidhahdo waa qoladii dareebus oo kuwan maaha. way laga maqnaayeen, waa la sii sallaxdayba. taana maxaa keentay khibradii bini aadamkay ogaayeen inay cidi ku soo biiri doonto ayaa godadka loo sii diyaariyey. hadda soo ma aragtid waay halkaa maxaan maanta inoogu caddaaday
qabi waxaan Soomaalidu ay sheeganaysa ee la leeyahay waa beelo iyo ummad kala duwan waxba ma kala duwana baahida keenta ee dhibaatada laba keentay kow abtirsiintana waxa keentay guluugan ummadda isku xiraysa xabagtan isu hayso oo weesaan uga bixin qabi beelaha lagu sheegayna wax kale maaha waa insurance company insurance kuwa maxay aymis way aymiska imika marka ku jirto oo gaarigaagu ku jiro ama mid caafimaad baa ku jirto dad baa ku wada jirta leedar isqoonin lacag baad bixisaa bil walba aymiska insurance marka lacagta bixinayso gaarigaaga haddii aanay waxba ku dhicin iyo hadday ku dhacaanba horta lacagta waad bixinaysaa bil walba haddaad ku jirto 20 sanadood oo gaarigaagu waxa accident aanay ku dhicin lacagta waad bixinaysaa boqolaal kun oo qof baa ku jira kambaniga oo lacagta bixiya okay markay bixiyaan kiina ay ku dhacdo accident ayaa laga bixinaya accidentkii gaarigiisa hadda bareeg markaad si u eegto miyaanay ahayn lacagta qabiilooyinku ay bixiyaan waa isku mid qabiilku marka imika aad ku jirto ee aad iska joogto lagu yiraahdo qof baa wax ku dhaceen ayaa lagu leeyahay maktiba la doonaya soo bixi waad bixinaysaa barita adiga hadday kugu dhacdana waa laga bixinaya waa insurance gaariga kambaniga laakiin insurance kambaniga wuxuu kaga duwan yahay insurance kambaniga oo ka bixi karta mid kale ka karta istishaar laakiin beerahan iyo waxan kama bixi kartido xabagti baa ku haysa insurance kambanigaas waxa laga yaabaa bari dhow abtirsimo samaysto asoo tagal who knows laakiin hadda Soomaa waxa weeye waa kambanigaas oo lagu sarfayfayo oo lagu badbaadayo oo maxay ah meesha dhibaatadu ka jirtay kayntu ka jirtay dhibaatadu taalay ayuu baa lagu badbaadayay maantana mid baa taala maantana waxa taala wali ummadii Soomaaliyeed baahida baan ka bixin adduunyada kale waxaan uga baxeen waxay dhaqaale bay dhiseen oo aqoonti baa la dhisay bariga horena saasay ahayd maantana wali waxa Soomaalidu ay beerahan ama kalaankan ama cashiirada waxaan la yiraahdo ay ugu sii dhigantay wax kale maaha waxaan isbedelin baahidoodii oo maxay ahayd adduunyada kalaba de way lahaayeen oo cid aan lahayn waxan ma jirto way kala duwanaayeen laakiin way lahaayeen adduunyada kale maxay sameeyeen horumar bay sameeyeen waliba xagga dhaqaalaha ayaa horumar la sameeyay marka maxay yimid dhaqaale markuu abuurmay dhaqaale abuurka waxa la socdo barbar socda cilmi baa la socda okay markii cilmiga ay dhiseen iyo aqoontii ee dadkii cilmi la baray shaqo abuurna loo sameeyay dhaqaalina sare loo qaaday qofkii muxuu noqday horta marka dhinacii baahida dhaqaalaha uu ka marmay qabiilkii kow talabaad maxaa ku dhacay qofkii waxa ku dhacay aqoon iyo cilmi uu yeesho maskaxdiisa wax farantay laba ta saddexaad qabiilka wixii kale uu uga baahnaa ahaa difaacana dawladii baa la wareegtay dawladii ayaa la wareegtay oo maanta cidda ku timaada marka adduunka kale ku nooshahay dawlad baa ka mas'uula nabadaada hadda kow dhaqaalaha iyo waxa gala dawladii iyo dawladkii baa la dhisayo waa shaqo tagaysa shaqadaadina waa soo helaysaa marka gurigaaga joogto haday dhibaato kugu dhacdo caafimaadka waxa tagaysaa dhakhtarkaas insurance ba ku jirta gaarigaaga haday wax ku dhacaan insurance ba ku jirta sameynaya haday dhibaato kugu timaado oo gurigaaga yar dabqabsado waxa ku imanaya qolada dabiska haduu guriga insurance kugu jiro qolada insurance ka bixinaysa hadii cid ku soo attackto numberkaaga yar baad soo garacaysaa booliska ku taagano sidii qabiilkaaga ku soo gurmanaya marka marata wix allaaliyo wuxuu qabiilku qaban jiray oo dhan baa laga saaray meeshii qofkii qabiilka markaa uga baahna maxaa markaa barbar socdo kale jaamacadihiina waxay research ku sameeyeen asalkii waa abtirsiinta iyo waxay ka meesha ka yimaadeen ardayda jaamacadii gashay cilmiga baa la baray waxa loo kala dhigay oo la yidhaahdo haddaynu nahay ummadda ka soo qaad ingiriiska ama Ireland waxay ahaan jireen waxan ay European qurbi lahayd okay waxan baynu ahay markaas waxa lagu barbar dhigayaa China iyo Brazil iyo Australia ku deganay Africa ayaa inta shalay isu ka barbar dhigaan lagu leeyahay keenu kan buuxa iyaguna kaasir ay kuwaasina kaasir maxay ku kala duwan yihiin qabiilooyin way waxan si loo sameystay laga dhaadhiciyay ummadii baa fahamtay ummadii baa aragtay khuraafad inay tahay waa laga baxay hore loo socday adduunka kuma arkaysid cid abtirsin sidii waxaan ku sii dhigan adduunka horumaray waxa ku soo gabagabeynaya dood yar ay Soomaalidu tiraahdo waxay ku oranayaan qabiilku wuxuu ina baraa inaad walaasha iyo adeerta guursan bal halka numar inay bal hadda aqliga maxaa ku barayaday qabiilku kuma baro walaasha iyo adeerta ay guursan yaa kugu yiri xagad ka keentay ana ku tusaya Mareykanka in adeerta laxmiya inaad guursataa waa ceeb ma aha waba xaraan incest bay yiraahdaan incest waxa weeye waa ninka wax ka daya inta kamida familigiisa dumarka ah ee aanu banaanayn inaga marka halka inaga walaasha aad guursan karto inagu adeerta waynu guursan karnaa waynu banaantay Mareykan in adeerta laxmiyaho oo adeerka rumi dhalay waa xaraan da guursata waaba incest baa lagu leeyahay wani walaasha u tago kala tahay okay ma qabiil bay leeyihiin ma abtirsiin bay leeyihiin no abtirsiin ma laha abtirsiintu iyo qabiilku kuma sheegayda walaasha kuma oranay walaasha ha guursan waaba walaasha
Chinese-ka atheist-ka ee aan ilaahayna diin lahayn ugu yaqaana walaashii inaan u guursan in adeertaa laxmiyaan guursan baan ku dhi Maraykanku abtirsiina male marka eeg يعني وضوط يروس كتعيفة وما بهنت إنه أنا قبيل يشيعه ولا شيء إن هذا تفرمه وايو أباهي ولا كي وانا قناه هذا كيفرمه إنه تقولنا وانا قناه إن هذا تفرمه هذا هو بتجوس إنه هو بتجوس أنا وين ربنا تتي لكن يقول بتجوس أنا قبيل ما لا يوش يا مركا قبيلكم وحلا يروح يوش أم معنا له هبي لا تم تشرع إن هذا كا يبتكا أنت يروح كورس هو قال لكن وحلا لي ريه بريه بلو كم بريه بلا وحلا سمستي خيالك وحلا ريه وحكي شرنا ما شرنا وعيمس وإنشورنس كمباني إنشورنس كان بليف من ما أنت دقالة لو دسو هدي لبا لو دسو Soomaali دقالة هي عدالة طبعا هديك عدالة ما حكوا هوستنا عدالة ما أنتي أهيد كرايم كي دنبيه إنت حق عقل سي أضل عقاتنا المنظمة معها وحوي opportunities كي فرصتين نوش هذا ضرتو ودك أشوفته وحبرشة إن لو جود المين شقوينك إن لو جود المين حرية هذا إن لو جود المين دين الإسلام كسيسي وحاسب هذا لو جود المين إذا هدانك واحد كود بينين عدة دنبك هاك الشيء عقاب إنه مريصو ده أقول لك تدنبك هاك الشيء إن opportunity فرصتين شقوينك على حيسطو رقالها جوا في عيها دولة داس المسؤولية هذه قاطعي والله يعني يبلاه يعني حبين سيجر تقبيل ده waxaan soo hayaa waa baahi waxa ku tusaya dhalinyartii yar-yarayd ee ku dhalatay qurbaha office waliba dawladda reer galbeedka maba yaqaanaan umana baahna ku soo kari maysa taasna qabiil kala hadal ugu leeyahay qabiil maxaya hadda waa soo dajir waayo dad baahi qabiil ugu tirsanaa ma jirto dhaqaali baa baabiyi marka waxaan isku hayaa waa wax yaro fudud oo khayaali ah oo la samaystay sida aan soo sheegay ayada aan soo sheegayna dib ugu wada noqdo dhamaantood anigu aayada maan tafsiirin anigu aayada kalbada ku jirta maan macnaheyn culimadii muslimiintu sida yiraahdeen iyo dadkeena cilmiga lahaa iyo sayniska iyo manisraaci labadiiba waxay ku tuseen waxaan Soomaalida loo qabiil ahayn oo kala yahay kalaankuna waxa la samaystay ee anigu waxba ka jiro yahay waa mahadsantii